Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa channelka wararka ee Somali News. Ku soo dhawaada timinteena maalinimo qodobada ugu waaweyn waxaa qaybka madaxweyne Farmaajo oo shaqo joojin ku sameeyay ra'iisul wasaare Roble kadib markii filla Soomaaliya ay ku eedeyseen musuqmaasuqii ugu xooggan ay ku kacay ciidamo tiro badan oo la duldhigay xafiiska ra'iisul wasaare Roble iyo xaaladda oo kacsan. ra'iisul wasaare Roble oo ka falceliyay shaqo joojinta uu sheegay inuu ku sameeyay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday baaqna u diray shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda maamul goboleedyada. beesha caalamka oo war ka soo saartay go'aanada ay kala qaadanayaan ra'iisul wasaare Roble iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo. madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariyo Qoorqoor oo ku wajahan magaalada Muqdisho kadib xaaladda khilaafka Farmaajo iyo Roble oo korortay. saameyn nooca ah ayuu ku yeelan kartaa khilaafka Farmaajo iyo Roble doorashooyinkii dalka ka socday iyo xaaladda guud ee magaalada Muqdisho oo kacsan. maanta qodobada iyo qodobo kale ayaanu ku dul istaagi doonaa warkeena u diyaar garooba saaxiibayaal. mar kale kulan wacan oo wanaagsan, waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen iyo kuwo kale oo ayna faahfaahintooda gudagalno. haddii ayna ku bilowno, madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu shaqada kaga joojiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble kuna eedeeyay inuu ku takrifalay dhul dan guud oo ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. qoraalka ka soo baxay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ayaa lagu sheegay inay socdaan baaritaano ku saabsan eedeymaha loo jeediyay ra'iisul wasaare Roble ee inta laga soo dhammaystirayana aysan jirin shaqo uu qaban karo. waxa uu xeeriyay qodobadani kow, maadaama uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble uu soo galay raad musuqmaasuq iyo ku takrifal danta guud oo haatan socda baaritaan looga gungaarayo tuhunkaasi, waxaa la joojiyay shaqadii iyo awooddu u leeyahay wasiirka koowaad tan iyo inta baaristaasi laga soo dhammaynayo. labo, sidoo kale golaha xukuumadda waxay sii wadan karaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan shuruucda iyo xeerka dalka. saddex, waxaa lagu adkeynaya in dhammaanba mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda inay ka fogaadaan ku takrifalka hantida guud iyo inay dhowraan shuruucda xeerka dalka. warqadan oo xalay xilli dambe ka soo baxday xafiiska filla Soomaaliya ee madaxtooyada dalka ee haatan madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday uu joogo, waxay intaasi kadib ka falceliyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble. ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa jawaab culus ka bixiyay tallaabada ugu dambeysay uu qaaday madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu shaaciyay inuu shaqo joojin ku sameeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta kadib eedeymo culus uu jeediyay. Roble ayaa ka jawaabay go'aankaas ayaa sheegay inuu baalmarsan yahay dastuurka iyo sharciga dalka sidoo hadalka u dhigay qoraalka Farmaajo ka soo baxay. sidoo kale waxa uu tilmaamay inuu Farmaajo uu bilaabay inuu awood ciidan kula wareego xafiiska isagoo ka dhigay dhaqdhaqaaqyada haatan ka socda filla Soomaaliya. warka ka soo baxay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee quseeya shaqada ra'iisul wasaaraha iyo isku daygiisa inuu ciidan kula wareego xafiiska ra'iisul wasaaraha waa tilaabo baalmarsan dastuurka iyo sharciga dalka. ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa sidoo kale xusay in wixii mas'uuliyad ah ee ka dhashay gulufkaas haatan socda uu qaadi doono madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Farmaajo. mas-uuliyadda wixii ka dhashay waxaa qaadaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ugu dambeyntii waxaa hoosta ka xariiqin ra'iisul wasaaraha uu sii wadan doono waajibaadkiisa shaqo ee loo egmaday isagoona shaacin inaysan cidna uga hibaysanayn shaqada hortaalo. ra'iisul wasaaraha waxaa sidii caadiga ahayd u wataa shaqo maalmeedkiisii, waxaana ka go'an inuu cidna uusan ka hubaysan gudashada waajibaadkiisa qaran si dalka loo gaarsiiyo doorasho horseedo in awoodda lagula kala wareego si nabad ah, ayuu yiri. lama oga sida ay wax noqon doonaan, waxaana xaaladdu ay muuqataa mid haatan ka sii daraysa iyadoo lagu guda jiro xilli adag oo doorasho. Soomaaliya ayaa ku daahday xaalada kala guur ah ee ka dhalatay daaha doorashooyinka, waxaana haatan laga digayaa inuu dalka galo dagaal sokeeyo oo mar kale dib u celiyo. sidoo kale xaalad kacsan ayaa laga soo warinayaa inay ka taagan tahay xarunta filla Soomaaliya oo saacadihii ugu dambeysay la geeyay ciidamo dheeraad ah sida aynu xogta ku helnay. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta oo war ka soo saaray xaaladda kacsan iyo dhaqdhaqaaqa laga dareemayo filla Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inuu socdo afgambi. waxaa socda saaki wax afgambi dadban ah balse guuleysan mahayo, ayuu yiri wasiir Al-Cadaala. sidoo kale waxa uu intaa ku daray in ciidamo la duldhiga xafiiska ra'iisul wasaaraha taas oo ku tilmaamay mid sharci darro ah. ra'iisul wasaaraha waxa uu leeyahay xafiis shaqo oo dastuurka fariisiyay in ciidan si sharci darro ah loo dulgeeyo si looga hor istaago waxay furaysaa albaab cusub mana shaqay doonto insha Allah, ayuu mar kale qoraalkiisa ku yiri wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta. arrintan ayaa ka sii daraysa xiisadihii ka dhexeeya madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee isku haya doorashooyinka haatan dalka ka socdo. lama oga sida ay wax noqon doonaan, waxaana xaaladda u muuqata mid haatan ka sii daraysa
khilaafkan ayaa banaanka u soo baxay markii uu madaxweynaha ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha inuu gudan waayay waajibaadkiisii looga egmaday doorashada kadibna Roble isna soo saaray qoraal lid ku ah Farmaajo oo sheegay inuu carqalad ku yahay dhankiisa doorashada isla markaana uu yahay musharax gooniya doorashada dalka ka socota ayay saameyn xoogan ku yeelatay khilaafka soo kala dhexgalay madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta iyadoona u muuqato in xaaladani dalka ay gelin karto dagaal siyaasadeed oo dhinacyo badani saameeyo dhinaca kalena madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu gaaro magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo haatan ku sugan caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb socdaalka Qoorqoor ee la qorsheenayo ayaa salka ku haya sidoo u dhexdhexaadin lahaa khilaafka Roble iyo sidoo kale madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo meeshii ugu sareeyay haatan marayo ila xog ogaaliyaha ayaa sheegay in Qoorqoor uu galayo dadaalo nabdeed ee lagu xalinayo labada mas'uul ee dalka ugu sareysa khilaafka ka dhex qarxay si aysan gacan ka hadal isugu bedelin maadaama ciidamo ugu badnaan la duldhigay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble sheegana inuusan jirin cid shaqo ka joojin karto oo shaqadii loo egmaday dastuuriga ah uu wato madaxweynaha ayaa la qorsheenayaa in Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble uu kala dab qaado si xaaladda haatan kacsan ee siyaasadeed ee dalka lagu soo dabaalo wada hadal isla markaana mas'uuliyiintan wada hadal ay ugu fariistaan madaxweyne Qoorqoor oo lagu eedeynayo dhankiisa inuu la safan yahay madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tiro dhowr jeer ku guuleystay sidaan oo kale khilaafyo soo hareeyay doorasho inuu wax ka qabto iyo madaxda ugu sareysa dalka intaba waxaana qorshuhu yahay inuu ka dego maanta magaalada Muqdisho si uu wax uga qabto muranka labada mas'uul soo kala dhexgalay arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa ah mid kacsan waxaana haatan midowga musharaxiinta iyo beesha caalamka ay la safan yihiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland kuwaas oo sheegay in shirki wada tashiga uu isugu yeeray ra'iisul wasaare Roble laga dhabeeyo la isugu yimaado inkastoo tilaabada uu qaaday Farmaajo xalay ka dambeysay xaaladda guud ee amniga magaalada Muqdisho ayaa ah mid ka sii dareysa waxaana jira dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dhinacyada iska soo horjeeda ay kala wadaan midowga musharaxiinta dhankooda ayaa guluf xoogan ka wada magaalada Muqdisho caasimadda dalka taas oo ku aadan arrimaha siyaasadda ee dalka ka taagan haddii sidaan ay ku sii socoto lama oga sidoo xaalka noqon doona maadaama khilaafka Farmaajo iyo Roble uu sababi karo in gacanta la iskula tago ciidamo iska soo horjeeda ay hubka noocyadiisa kala duwan isku adeegsadaan xaaladda guud ee Muqdisho ayaana ah maanta kuwa ka duwan maalmihii hore maadaama dhaqdhaqaaq siyaasadeed iska soo horjeeday iyo ciidamo dhinacyada kala taabacsan ay ku sugan yihiin beesha caalamka dhankeeda waxay ku baaqaysaa war ka soo baxay in sida ugu dhaqsiyaha badan wada hadal lagu bedelo arrinta madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roblena uu guto shaqada dastuuriga hortaale arrimaha doorashooyinka si loo dhammaystiro maadaama dalka doorasho raagto oo waqti badan qaadatay uu ku guda jiro xilligaani wixii warar ay ku soo kordha xaaladaha doorashooyinka waan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal halkan oo ah channelka wararka Soomaali News ayaad ka daawan doontiin xasanidin